hadday tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waaniga Cabditax Ibraahima xaggaad nagala socotaana waxa weeye Somaltech. maanta waxaan ka hadli doonaa cashar muhiima oo ku saabsan qaabka ugu fudud ee aad u kala saaran karaysid maxay ahayd ama u kala qaybsan karaysid C-gaaga ama maxay ahayd computer hard disk-gaaga qaabka aad u kala qaybsan karaysid uga kala dhiganaysid hadday fara badan tahay maxay ahayd qaybo kala duwan ayaan maanta casharkeena ku eegaynaa. casharkan wuxuu muhiim yahay dadka maxay ahayd jecel inay kala qaybsadaan maxay ahayd diskigooga kadibna maxay ahayd waxyaabo kala duwan ku kala shubtaan. marka maanta waxaan ku tusi doonaa qaabka ugu fudud ee maxay ahayd aad u maxay kala qaybsan karaysid diskigaaga. okay haddaba si aad u samaysid waxaad tegi doontaa waxaad soo furi doontaa xagga maxay ahayd waxaad kala garayn doontaa maxay ahayd this PC right click baad siin doontaa kadibna waxaad tegi doontaa halkay ku qorantay manage. okay markaad manage dooratid waxaa kusoo bixi doona maxay ahayd maxay page-kan aad arkaysid kadib waxaad ka dooranaysaa disk management xaggay ku qorantay disk management marka ku qorto waxa ku soo baxaya dhammaan diskiyada aad haysatid. xaggan waxaan ku haystaa C-daydii iyo tay ku qorantay Sanskar mid walba waxa weeye 500 GB approximately. markaas waxaan doonayaa in aan Sanskar aan wax ka sii dhex samaysto kadib waxaad siinaysaa right click kadib waxaad ku dhufanaysaa shrink volume. okay kadib wuxuu samaynayaa preparing buu kuu samaynayaa ama maxay ahayd inuu ku weyn ku sameeyo volume-kaaga volume-ka guud maxay ahayd xaggan aad gelinaysaa inta doonaysid inaad maxay ahayd shrink garayso. let's see waxaan oranayaa san example kugu tuso waxaan oranayaa 150 okay 150 GB baan oranayaa tusaale ahaan kale igu kala qaybi marka waxay ku soo haraya xaggan sida arkaysid 332 bay ku soo haraya markaan shrink inta ku sameeyo. okay so waxaan oranayaa inaan ku raaxo shrink. okay sida xaggan ka arkaysid waxa ii yaala 146 maxay ahayd GB oo ah unallocated. marka waxaan doonayaa inaan maxay ahayd right click siiyo kadibna waxaan oranayaa new symbol volume. okay kadib waxaan oranayaa next. okay marka xaggan wuxuu ku sheegay wixii aad dooratay marka 150 baa yes baan oranayaa next baan oranayaa marka F iyo whatever wuxuu noqonayo maxay ahayd xaggan aad ka bedelan kartaa F ma F buu ku noqdaa ma G buu ku noqdaa. let's see waxaan oranayaa anigu G. okay waxaan oranayaa maxay ahayd marka waxaad kaga tegi doontaa waxyaabahaas default baad kaga tegi doontaa xaggan wuxuu kusoo qorayaa NTFS kii new technology file system kii. okay oo qaabka maxay file systemyadu jireen ah default ba xaggan kugu yaala. okay default baan dooranayaa kadib new volume baan oranayaa kadib waxaan oranayaa next kadib waxaan oranayaa finish. marka waxaa laga dhamaystirayaa maxay ahayd volume-kaygii cusbaa kadibna waa la ii format garaynayaa. okay marka 146 new volume ah ayaa iigu soo kordhay xaggan saad ka arkaysid 146 GB oo free ah ayaa iigu soo kordhay. marka qaabkan waxa weeye qaabka ugu fudud ee aad maxay ahayd partitioning ama aad u partition garan karaysid maxay ahayd hard disk-gaaga. okay marka waxay ku fiican tahay kale haddii aad doonaysid maxay ahayd waxyaabo fara badan computer ugu qabatid waad kala qaybsan karaysaa. okay marka casharkan maanta xaggaas buu ka eegayay casharada noocan lamid oo ku saabsan Windows iyo waxyaabahaas oo dhan haddaad jeceshahay inaad ogaatid fadlan ku soo biir channelkeena waa mahadsantihiin intaan casharka ku kulmayno saas iyo nabadgelyo.